وسؤاشيني لو قدام بيسي برنامجنا عاوة وسؤاشا صدح بقول صدن يكو وحليه سائلكن السلام عليكم شيخنا waxaan mas'uul ka ahay xoolo waqfi ah oo asalkooda muslimiinta laga soo ururiyay walow hadda tarmeen aniga maxaa la iiga ogol yahay xoolahaas wax hanti gaar ah ma ka samaysan karaa sidee ugu fiican shariicadana waafaqsan aan xoolaha u maareeyaa mas'alada ku saabsan awqaaftu waa waxyaalo asalkooda dad ay leeyihiin caam ah wixii ka soo baxaa la intifaacsadaa lafahooduna way jiraan awqaaftaas dadka mas-uulka ka ee gacanta ku haya waxaa loo yaqaanaa naadirul waqfi baa la dhahaa waa ruuxa gacanta ku haya waa ruuxa maamulaya waa midka xifdinaya waa midka wax ka soo saaraya ee camiraya waxaa la yidhaahdaa naadirul waqfi baa la dhahaa قيم الوقف نواليدا المتولي نواليدا كل ذلك فقه ولا استعماله روحاسي وقف كمسؤول كا وقف كلام مد من نقون كرا نمبا بحصدي غوريغان اما دول كان بحصدي اما هوتيل كان بحصدي ووقف اسغي بخيبا كو ديبو مسؤول كاغا دغه جهادي بحصتي با مسؤول كاغا دغت ما adigaaba soo ururiyo dadka intaad ka soo ururisay baad mashruuci istaajisay markaasaad haddana mas'uul ka tahay waxa ku dhiibtay dawladii meesha ka jirtay nidaamka ku xil saaray oo qaadiga maxkamad baa ku xil saartay inta way dhici kartaa ama adigu soo ururiyo mashruuca istaaji ama ninkii iska lahaa ku dhiibo ama qaadiga iyo maxkamaddu ha ku xil saarto mas'uul ha kaaga dhigtee waqafka cidda gacanta ku haysaay xuquuqdeedu wax weeyaan fuqahadu say u badan yihiin horta ruuxaasi xaq waalay waxa loo daliishan xadiis nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam bukhari ku sugan waxa loo daliishan athar isagana umar ibn khattab ka sugan bukhari muslim soo saareen waxa loo daliishan looga qiyaas qaadanaya zakada dadka soo ururiya iyo xuquuqda la siiyo maxay leeyihiin way marka si gaaban hadaan u tilmaano waxa loo kala qaadayaa haddii waqafkan lagu dhiibay ciddii ku dhiibtayna ay wax ku magacawday mushaarka qaado waxaas qaado waqafkana maamul intii uu ku magacaabay ha yaraato ha badnaato baad qaadan kamana badsan kartid waa siday jumhuurtu qabaan ciddii waqafkani ka soo jeeday haddaynan cidda maamulaysa gacanta ku haysa ayna waxba u magacaabin waa loo dhiibay waxbana looma magacaabin waxa qaada lama dhihin marka shaafiiciyadu waxay leeyihiin waxba ma laha ninkaas ihsaan iyo lillahi hawlaha uga shaqeeyo waxba kama qaadan karo fuqahada kalena waxay leeyihiin ma maxkamadii qaadiga loo geyno qaadiga u xayimaya wixii uu ku shaqeyn lahaa oo suuqa ujratul mithliga waxa la yiraahdo dadka shaqada isagu hayo kala haya suuqa maxay qaataan buu ka qiyaas qaadanaya qaadiga iyo maxkamadda u magacaabaysa marka inta qaado waxa kalena meesha loogu talagalay ku bixi sidaana waa hadii aan waxba loo magacaabin oo ninkii baxsaday uu san wax u magacaabin hadii isagu uu ba mas'uul ka ahaa soo ururinta xoolaha waa dad wadaad far badan oo xoolo dadka ka ururinay oo qaaf ku istaajinay iskuulo masaajid goobo wax soo saara jamciyaad xoolo dadka laga ururiyay baa lagu qabtay xoolahaasi waa waqaf laakiin cidina uma magacaabin wuxuu ka qaadan lahaa isaga sameeyay isaga asaasay isaga dhisay isaga gacanta ku hay markaas oo kale waxay leeyihiin shaafiiciyadu wuxuu ka qaadan karaa isaga ujratul mithli waxa weeyaan waa mushahar dadka isagoo kale shaqadaas oo kale haya suuqa waxa laga siiyo mushahar ah baa la siinaya inta ka badan haduu ka qaato waxaara qaar waxay leeyihiin laba la isgarab dhigiyo ma in masruufkiisa wax ku filan uu ka qaato iyo in mushahar dadka isagoo kale ay qaataan la siiyo labada ka yar baa uu qaadanaya labadooda kiyar buu qaadanaya laba gooraba xoolahaasi xoolo uu ruuxu leeyahay ma kutubta markaad fiirisana
inta badan fuqahadu waxay ka hadlayaan waqafka ruuxa ka shaqeeya cid uga korayso oo wax u qadarta waa inay jirto. haddii kale ruuxii waa ku kala tagayaa sooma, isaga waqafkii gacanta ku haya, cid ugama korayso, cid kuma maamusho, guddi kore ma leh, awood le maaha, asagaa iska maamusha. bini aadan iyo damaciisa iyo hungurigiisa xoolihii haddii lagu sidaayo muxuu samaynaa? ya xaggan guri ka dhiso, xaggan ganacsi ka samayso, xaggan la qiilbax, maya de annagaabaa samaynaya, annagaaba gaajaysan, maxay sheegi iska wado. mas'aladaa waa mas'ala dad badan maanta ay ku khaldan yihiin. weliba dadka khaladka ka gala masalada badankood waa wadaadada, waa dadka wadaadada ku abtirsada. sababtuna waxa weeye dadka awqaafta loo dhiibee, xoolaha loo dhiibee, uruuriyo ee wax ku hagaajiya, mashaariic ku qabta waa wadaadada. ha ahaatee wixii markuu gacantooda soo gala in badanoo ka mida waxay ugu tasarufayaan sidii iyagu iska leeyihiin oo kale. bal marmarka qaarkood waxaa dhacaysa intuu dhinto in la dhaxlo ooba la yidhaahdaba aabbahanaa nooga tag, waraabiin xagee buu ka keenay, jeebka muslimiintu ka soo ururiyey. khaladaadkaas marka way jiraan. su-aasha qaybteeda ugu dambaysan ku khatimayo jawaabta waxa weeye, xoolahaas ruuxu wax meel ma ka dhigan karaa, hanti ma ka samaysan karaa? jawaabtu waa maya. waana laysla ogol yahay inuusan xoolo ka samaysan karin, juhdigii doonay ha geliyo, laakiin xoolo meel kama dhigan karti. ujuuradaada qaado, mushaharkaaga qaado, inta kale meeshii loo baxsaday baa lagu bixinaya. aharka fi saxiixi albukhaari min xadiidi cumar ibn khataab ayaa waxaa ku soo arooray hayra mutamawilin fiihi, waa inuusan xoolahaasi maalaysanin, kaydsanin, meel dhiganin, xoola ka samaysanin, mushaharkiisa ha ka qaato, oo weliba ay fiican tahay jiha kale inay qadarto, u qadarto, ee isagu inuusan isu qadarin ay tahay. hada wabillahi tawfiiq, wsal allah wslam wbaarak cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslem.